السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجيء وحسن جمعة الرابلة وحنا عمدا حتى وبركة ستيم ترينين كاسو سعودي مدة طوابعة ولو جود يارينا يا أرضية إن يكسو بنيجان سلوينها صومال ستيم سميت توبركاني وحاد جارة ديرد اللوجو سارعي تكنولوجيا ده وحلوي قان IoT أم Internet of Thinking برنامج كبول نملوي قان تمرت قرحة نمبا Power System خاصة وحلوي قان Grid of System kaas oo wadankeena ku haboon marka loo fiiriyo duruufaha ka jiro tababarada is qaateen ardayda waxa kamid ah ama mashaariicda ay qaateen waxay ahaayeen mashaariic gacanta laga sameeyo waxa kamid ahay cabirka qoyaanka ciidda sida loo yaqaan soil moisture sensor amba irrigation system ka saacido traffic light ka ama nidaamka wadooyinka iyo maxaa la yiraahdaa sidoo kale garaaca wadnaha qalabka isticmaala heer kulka waxyaabo badan iyo sidoo kale qoraxda tamarta sidoo kale ardayda ma aysan sameeyeen mashaariic kaliya tiknoolajiyada ku shaqeyso sidoo kale waxay sameeyeen waxyaabaha loo yaqaan la xiriira nolol maalmeedkeena sida wacyigelinta waxaana tababarkay soo bandhigeen ama maxaa raada projectiga soo bandhigeen waxa kamid ah sida loo nadiifiyo maxaa raada nadaafada ama gacmo dhaqista iyo sida looga hortago jeermiska iyo sida u faafo sidoo kale mashruucan loogu matalagelin ardayda in lagu baro kaliya qalabka tiknoolajiyada sidoo kale wuxuu ahaa in laga dhiso maskaxda ay noqdaan arday hal abuur leh حل رادية sidoo kalena naqda dadka ka qayb qaata horumarinta bulshooyinka Soomaaliyeed maanta waa maalintii labaad oo STEM Somali Summit waxaanu ku suganahay STEM Innovation Lab oo ka dhacayaa Ehano Academy ardaydu waxay soo bandhigayaan experimentiyada ay soo qaateen ama practicaladii ama projectiyada ay maalmahan ay soo qaadanayaan halkan ku soo bandhigayaan waxaan aad ugu faanayaa ardayda sida kartida leh dhiiranaanta ay soo bandhigeen iyo dadaalka ay muujiyeen waxay noo tahay sharaf weyn waxaan si qaas ah oo sidoo kale ugu mahad celinayaa macallimiinta tababarka ka qayb qaatay oo iyo khaas ahaan injineer Nuur oo dhabar adeegay ardaydaana wax badan soo barayay muddo toddobaadyo ah sidoo kale waxaan u mahad celinayaa qabanqaabiyaasha STEM Somali Summit iyo qof walba oo ka qayb qaatay hagayaasha teamka dhamaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa tiknoolajiyada ama STEM kaliya ma tiknoolajiyada ee waxa waaye ama in la barto qalab kaliya maana waxa waaye waa horumarinta iyo iftiinka Soomaaliya hasanidin